kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal. walaalayaal waa walaalkiin Cali Maxamed Jeelle oo alaba idinkala soo xiriira magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. waxaan doonayaa inaan idila wadaago qiso xanuun badan oo dhacday berigii uu joogay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. walaalayaal qisada tan waxay ku bilaabanaysaa sida tan. nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu arki jiray nin asxaabtiisii ka mid ah yuu arki jiray mar walba oo ninka uu eego waxa uu wajigiisu ka arki jiray murugo aad iyo aad u far badan. wuxuu ahaa nin aad murugay kaga muuqato. markaa buu maalin weydiiyey wuxuu yiri oo maxaa ku helay mar wali wajigaada uu la murugoonaya murugada ay kaaga muuqataa. markaas wuxuu yiri rasuulka ilaahayow berigii jaahiliyadda islaamka ka hor yaa wuxuu yiri waxaan galay dambi, marka waxaan ka baqayaa dambiga foosh xun aan galay inuu si ilaahayga cafinin yaanba ka baqayaa. markaasuu nabigu weydiiyey calayhi salaam wuxuu yiri oo waa maxay dambiga aad gashay? markaasuu kaga sheekay rasuulka ilaahayow wuxuu yiri berigaa jaahiliyadii jirtay wuxuu yiri gabdhaha nolosha lagu aasi jiray. marka wuxuu yiri waxa ii dhalatay inan, marka waxaan go'aansan yiri inaan dilo. markii aan rabay inaan dilo yaa wuxuu yiri hooyadeed yaa iiga shafaaco qaaday waxay iga codsatay oo iga bariday in muxuu inanta yarta aanan dilin. marka wuxuu yiri waan iska aqbalay waan yeelay. inantii ayadad wuxuu yiri waa ay weynaatay oo wax ay noqotay gabar aad iyo aad u qurux badan oo muxuu haweenkii markaa joogay gabadha ugu qurux badan ayay noqotay. markaas waxaan muxuu ahaa gabadhii waa la iga soo doontuu yiri nin baa soo doontay inuu guursado rabay. markaas waxaan ku fakiray ma irintaadii intaas aad soo korinaysay miyaad muxuu ahaa nin kale u guurinaysaa markaasuu carruur ka dhalaaya? wallahi wuxuu yiri taa ayadaa wax jira ma aha, mana suurtagali karto. caqli xun ayuu ku fakiray. markaas wuxuu go'aansaday haddana wuxuu aad u dhiibsanayaa inuu gabadhii ay guriga joogto ee ayadoo aan la guursanin guriga u joogtana uu kahanayaa inuu ninka u guuriyana sidoo kale uu aad buu u kahanayaa. markaas wuxuu go'aansaday inuu gabadhii dilo. maalin maalmaha ka mid wuxuu yiri gabadheedii safaran aadayna inakeen hooyadii aad ay ula dardaarmay waxay ku tiri war gabadha iyo xafid oo gabadha maxaa iga dilay gabadha ayada. waa ay wada bixeen labadoodii. markii meel dhex la sii maray wuxuu arkay cayl meel ku yaala. caylka ayuu dul istaagay. markaasuu fiiriyey gabadhii waa ay dareentay inuu rabo aabaheed inuu dilo. markaaba intay soo carartay ay aabihii isku soo duubtay tir aabbo hay dilin oo ku bari aabbo hay dilin aad bay u bariday. markaas buu wuxuu yiri waayahay. haddana wuu fikir wuxuu xasuustay ma gabadhaadii miyaad nin kale intaad u guurso carruur ka dhalaya? markaas buu gabadhii intuu qabtay ayuu si madax ayuu ceelkii gabadhii ugu riday. markaasuu ceelka dul istaagay. gabadhii siday u qaylinaysay asigan meeshuu fadhiyaa ilaa markii dambe qayladeedii uu waayay oo gabadhii ay geeriyootay. sheekadii markii uu dhammeeyey yaa nabiga ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ayaa wada ilmeeyey. qadiyadda xanuunka badan leh ayay la ilmeeyeen. haddaba walaalkayga muslimka ahow haweenka waxay soo mareen dhibaato fara badan. dhibaatooyinka oo muxuu ahaa islaamka ka hor iyo diinta ka hor sida ay u dhibaatisnaan jireen. hase yeeshee marka ay diinta timid ayay haweenka ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmadoodii iyo sharafkoodii sare u qaaday. kuwa maanta sheegaya xuquuqda dumarka ilaaliya iyo waxyaabaha dhahayo ha ogaadeen in diinteena islaamka xuquuqda ay ilaalisay marka ay timidna la waayay gabadha nolosha lagu aaso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.